Dhacdadan waa mid dhab waxay ku dhacday dhalinyaro oo ku nool Maraykanka. Wuxuu furi jiray taleefankiisa, wuxuuna eegi jiray shaqooyin cusub, wuxuuna diri jiray codsiyo badan. Laakiin sababta uu heli jiray waxay ahayd mid isku mid ah, midaasoo ah in gebi ahaanba aan laga soo aqbalin codsiyadiisii dhammaan. Saaxiibadiisa badankood shaqooyin ayay heleen, qaar waxay dhisteen ganacsiyo ay ka madax bannaan, qaarkood xitaa bay buursideen oo waxay samaysteen nolol kala. Tani waa dhacdo dhab oo ku dhacday. Waxay ku tusaysaa in xaaladaha qaarkood ee dhalinyarta soo wajahdo ay ka gudbi karaan dhinac kasta, meel kasta, goob kasta. Markuu qofka cariiriga dareemo, waxaa la gudboon inuu sameeyo. Dhacdada sheekadan ku xutun ayaan kaga hadli doonaa. Muddo 2 sano ku shaqaynayay baaskiilkiisii uu delivery ku watay. Baaskiilkiina wuxuu ka soo tagay delivery halkaasuu ganacsi ka dhigay. Ganacsigaas uu gawaaday. Cali wuxuu istaagay masraxa hortiisa, wuxuu eegay boqolaal dhalinyaro ah. Kadib wuxuu ku yidhi jumladan: markaan shaqo waayay, waxaan mooday inay nolosha i diiday. Waxaan fahmay inay didmadaasi ahayd mid bulshada iyo horseedday. Laakiin Cali weli wuxuu joogaa halkiisii. Cadaadiska qoyskiisa ayaa sii kordhay. Ay dadka ay ku maareystaan ayuu gaaray. Waxaa inta badan ka dhex guuxayay goormaad shaqo helaysaa. Maalin maalmaha ka mid ah, asagoo aad u warwaraysan, wuxuu arkay oday waayeel oo dhiban. Odaygii ayaa watay boorsooyin hore. Cali ayaa si fudud u arkay, waxa uu qafay dhinacii odaygii. Markay wada hadleen, odaygii ayaa eegay Cali oo ku yidhi: haddii albaab kasta laga xiro, waxaan laga xirinin albaabka waa Cali. Erayga ayaa qalbigiisa ku buuxayay, wuxuu sameeyay baahidiisa iyo wax allaale wuxuu rabaa inuu warqad ugu soo qortay. Kadibna Allah subxaanahu wa tacaala uu weydiistay baaskiilkiisa. Xitaa asaga baaskiilka ma lahayn, wuxuu ahaa mid soo ijaabtay. Subaxa ilaa fiidkii hore, dadka wuxuu u geli jiray alaabaha fudud, kuwaas oo ka soo qaadi jiray restaurant-yada iyo carwooyinka. Ganacsigaas uu gawaaday. Cali wuxuu istaagay masraxa hortiisa, wuxuu eegay boqolaal dhalinyaro ah. Kadib wuxuu ku yidhi jumladan: markaan shaqo waayay, waxaan mooday inay nolosha i diiday. Laakiin maanta waxaan fahmay inay didmadaasi ahayd mid bulshada iyo horseedday.